بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وعد فتاح أحمد جامع يوتيوب كأداونا يسانا وعد فتاح إلتري صاحبي الكسود هذا حداد يقول عصبته ولا الوحان كاعسنا هنا سبسكرايب دع أسيسي وحوين ما العقنا ما أهن ولا الكيجي يقول تاجر حيجا حاسدين حاجة دان أقول جدبه وحان روائنا كهالله قبل أسوق جرستي intaan gudaha sii galin waxaan rabaa cudurdaar inaan ka hadlo aniga waxaan soo bartay family problem psychological waa soo bartay psychological of Soomaali wax lagu dhahaa ma aqaan runtii psychological waa soo bartay family problem waa soo bartay videogeyga ama youtube-keyga wuxuu u badan doonaa family problem inaan ka hadlo waayo family problem aan soo bartay mid koowaad adigoo way arag aan ahayn adigu way arag aad ahayn oodan micnaa aadan ximal culeys badan aadan qaadi karin aadan ximali karin micnaa dumarka hadaladooda iyo qayladooda iyo wax ay ku hadlayaan adigoo micnaa aadan khibrad weyn aadan u lahayn fadlan ha isku guursanin way arag soo noqo wax walba soo baro taas meeshaad ugu baxaya toobigeyga wuxuu noqon doonaa insha Allah gabadha hadda soo guursatay marka aad soo guursanaysay wad kulkulinaysay wax walba u sameeynay kaal iska arag quruxdeeday markay ku soo hor istaagto aday dhamaalaaba waxaas dhisa habeen iyo maalin may ku soo hor istaagto okay no problem gabadhii sanadooyin ayaad qabtay 2 cunug 3 cunug ayaad ka dhashay kadib aad waxaa rabtaa inaad naaka la guursatid haddii aad naag la guursatid gabadhan xanuun noocee ah ku dhici doona mustaqbalkeeda maxaa iska bedeli doona gurigaaga maxaa iska bedeli doona walaalkayga macaan caruurtaada say noqon doonaan adiga xitaa saameynta ma ku saameyn doontaa أنا كملي هجورسني لكن it's not must إنا جورستي تقصب ما أهن ولا الكيجا معان قصب ما أهن إنا جورستي يس جورسوا على الغناي أداد أوجد حتى حمل كرتد واي أود أقول هذا هاي أطبح قبرت بدن على هذا هاي لكن جبدان أيضا حتى صدق سنة إيسان جارين لباتين إيشان أيضا جرت صدق إنه كل شيء ولي baahi weyn isku qabo ayaa rabta inaad naaka la guursatid gabadha markaad la guursatid depression ku dhacayo way isku buuqaysaa dhibku weyn oo soo gaaray adiga ma ogaan kartid laakiin ayada mooyaane cid kale ogaan karta malahan dumarkan way sawir badiyeen dhibkoodan inay qarsan aad u jecel wali gabdhaha Soomaaliyeed they like to inay aad u qarsadaan bay jecel dhibka haysto sembir markii family timaado guriga farxad badnaa caruurtaada quruxda badnaa marka galabtii aad shaqada ka imaadid caruurtaada ku soo ordi jiri wixii way dhamaanayaan guriga carafta ka soo bixi jirtay wixii ma jiraan oh my god adiga xitaa si kala noqonaysa gabadhii waxay noqonaysaa careless she don't care even herself jirkeeda xitaa ma fiirinayso wax unbaa ka maqan marka waxaa lagu leeyahay way masiiris no sometimes masiir wuu jiraa laakiin qofka dhaawaca soo gaarayo nafsiyan runtii hadii laga hadlo in qofka marka dhibkaas uu soo gaaro wallahi soo ugu baxay way adag tahay gabadhi way iska dul qaadanaysa waxa lagu leeyahay ninkaaga iska qab ninkaaga la joog gabadha ugu aqli badan ninkeeda inay la joogto la sabarto ay isku dayaysaa laakiin xanuun nooca bay dareemaysaa ay ku sabraysaa laakiin ogow nolosha hore ma helaysid farxadii hore ma jirto caruurtaada xitaa waad ka dareemi kartaa labiskii iyo quruxda badnaa iyo qubeyskii iyo saliidii caruurtaada loo marin jiray iyo wixii way dhamaanayaan saaxib mid kale sirrtii lagu goli jiray iyo sirrta quruxda badnaa guriga unsiga iyo barfuunka iyo labiskaaga iyo meel soo saari jiray iyo wixii way dhamaanayaan adeer macaan waayo
wanaagii lagu soo sameyn jiray inaad arki waysay ayaad naag kala damacday maxaa ka waysay gabadhaani okay 3 cunug bay ku dhashay waxaa isdhaysa jirkeeda ayaa kala daatay jirkeeda hadduu kala daaytana adiga sabab u ah walaalkayga macaan wallaahi bilaa adaa sabab u ah waayo 3 cunug Google maysan download maysan ka soo sameynin do you know that first jirkeeda ka soo go'een yes adi you only do something blood wax jirkaaga baad ku shubtay just broke that egg ayaa jibisay laakiin 9 bilood calool cunug ku soo waday dhib iyo rafaad wallaahi oo billaahi nin walba waxa wanaagsan naagtu markay dhalayso inuu ag joogo ayaa adduunku wuxuu arki lahaa dhibka ay la marayso wallaahi oo billaahi markaas ogaana naag waxay tahay xitaa qalbigaaga kuma siinaa ka la gurso dadka dameerka leh waay laakiin dadka bini aadamka dhan isku mid ma ahan wallaahi oo billaahi ragga dhan isku mid ma ahan dad waxa ku jira boqoreen ah oo wax walba dareemaya haddii gabadhan aad la gursid maxaa dhici doona ka fikiraayo carruurtaada maxaa u dambeyn doona noloshii hore sidii hore maxaa iska bedeli doona walaalkayga macaan nolol yar oo qurux badan oo raaxa ah oon stress ku jirin ayaad haysatay markaas waxaan qaltaagaysaa stress murug buuq okay naagta kale aad soo guursatay ha u maleynayna inay micnaha sidaas ay kugu daynayso waxay isku dayaysaa naagta hore inay kaa furto waa laazim taas that's 100% boqolkiiba 99 gabadh waxay sameynaysaa gabadh kale oo la guursaday inay gabadhaas ay qadka ka saarto laakiin gabadh waxaan in micnaha aan gabdhaha la guursaday aan waana yar ugu diraaya haddii lacala lagu guursaday walaal ninkaaga ha iska furin run ahaantii ha iska furin way carruur baad u dhashay nin ma dhaamo laakiin aan caloosha mara ku xiratid inda adeeg inaad samaysto carruurtaada saa ku korsan laheed iyo ninkaaga saa dhab ugu siisan laheed iyo noloshaada waxnaysan iska bedelin laakiin way adag tahay gabar samaynaysa saas wallaahi billaahi inay isku yaacdo gabadhii xitaa inay duur iyo casir isku dartaa laga yaabaaba wallaahi nolol kaloo cariir ay galaysaa gabadha waxaa ku dhici doona maskaxiyaan in micnaha xasuusteeda ka tagtaba qaar waxay isku dayaan hataa inay isdilaanba ama mar walba cunugaaga in la qaraaca ay noqonaysaa mar walba cunugii in la qaraaca qalad yaraa la sabay cunugaa lagu yaaca lagu maqraaci karo cunugaaga meesha ku rafaaday carruurtaada meesha ku rafaaday ayada jirkeedii hore aad ka cararaysay ayaa isbedelaya wax kale iska daaya okay naagtaas aqrashka aad ku guursan laheed aad isleedahay gabadhaani jirkii iyo nafaqadii iyo wixii aad ka dhammaaday maa ku qarash gelisid ma sexy ka dhigatid romantic qarash geli jirkeeda waad bedeli kartaa gabadha shoppingkeeda waxeeda meel u saar lacagta aad gabadhaas ku qarash gelin lahayd familigaada ku qarash geli midda kale gabadha haddii sanad walba ku dhalayso wife oo aad naakal u raadinaysaa ii sheeg gabadha way ku dhadhalaysaa way qurux badan tahay waa ujeedaa wax isbedeli ma lahan nolosha kale waa sii ziyaadaysaa okay adoo waxba haysanaad guursatay noloshu way isbedeshay falxaad ay ku noqotay adduunya isbedeshay marka walaalkayga haddii xoolo yar aad heshay maxaa isbedelay xoolahan gabadhana ka dambayso soo ma ogid carruurtay dhashay carruurtay dhashay nasiibkooday la dhashteen ayadaa dhashay marka wallaahi bilaa aniga nimanka ragga Soomaaliyeed wallaahi kulama talin leen inay naag labaad ay guursadaan guurso marka adiga isku filan tahay asliis ciidan waa dabiri kartaa ciidan tan waa dabiri kartaa laakiin adigoona maskaxdaada aysan buuxin oodan micnaha ciidan aadan 50% asiin karin taas aan 50% asiin karin ha isku guursan nimanka wali waxay u badan yihiin naagta labaad ay guursadaan ay waxay rabaan inay micnaha ay wax walba u sameeyaan say gabadhan hore u sameeyaan waxay isleen tan no problem afar cunuga ka dhashay biilkeed la iska sii wartana kaaga qiimo badan midda cusub ha laakiin xaq aad gabadhaas ka gashay wallahi waa la isweydiinayaa laazim waa la isweydiinayaa ayadoo raalli ka inaad ka guursatay ayadoo jam jiro ama ayadoo buuqsan ayaad gabadhii ama ayadoo uur leebad naag kale ku guursatay ayadoo xanuunsan ama sirir ay saaran tahay naagta kala guursatay dhibka aad gaarsiisay miyaad ogtahay waa may
aniga taladayda ahaan fadlan ha la guursanin xaaskaaga haddii xitaa jirkeeda uu isbedelay wallahi jirkeeda waa soo celin kartaa. I'm very sure jirkeeda waa soo celin kartaa haddaa qarash gelisid weeye. haddaadan qarash gelin aadan rabin ha la guursanin oo sideeda ku daa oo shoppingkeeda iyo waxeeda le u sameey oo faraha ka qad. lacagta faraha ka saar ayada is soo qarash gelinaysa. waxaa lagu leeyahay gabadhi way ka dhamaatay oo gabadha aadan shopping siinin, nafaqadeeda aadan xitaa 100% aadan dhiibi karin aan leedahay way ka dhamaatay. 4 cunugaa lagu dhalay marka 4taa cunug dhulkay ka soo qaaday. what's wrong? walaalkayga macaan ha isku dayin familigaaga inaad burburisid. wallahi ha isku dayin. semberi markay cidda ay isku faraxsan tahay oo waxba kaa maqnayn caruurtaada maasha allah caruur ilaaha bixiyo caruur qurqurux badan lagu dhalay gabadhaada iska faraxsan tahay habeenkii cashadaada subaxii dharka shaqada aad ku adaleed diyaar ah wax walba ay ku korsaariyeen caasi ha noqonin walaalow. wallahi caasi aad noqotay. wallahi waa sii wada haddaan dhaha caawo dhan ma dhammaanayso. waxaa kaloo jeclaan lahaa dadka ugu cusub ee intii daawanaysaba fadlan haddii aad subscribe ii saartay like-ta ii saar videogan. haddii aad subscribe-kana ii saarina fadlan waxaan kaa codsanaya subscribe inaa ii saartid insha allah. waa inuu mar kale